Iran waxay ku dhawaaqday mar kale inay soo saartay nooc cusub ee ugu yeedhay inuu yahay wadani oo ay ku tilmaantay inuu yahay 10ka nooc ee hub ee ugu waaweyn ee maraakiib iyo gantaalahoodii oo isku rakiman oo markii ugu horeysay waddanka lagu soo saaray kaasoo ay ku soo bandhigtay magaalada gacanka Persianka saaran ee loo yaqaano Bushahir madaxweynaha waddankaasi Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa fadhiyay goobta kadib markii la soo xarunta loo yaqaano Shahid Mahalati shipbuilding waaga shipbuilding industry waa warshad markaasi maraakiibta samaysan lagu soo bandhigay mid kamid ah maraakiibta ugu casrisan ee wadanku uu yeesho dabadeedna dekada wadankaasi lagu sii daayay oo alaakay isagoo furtay kana ku hubaysan tiknoolajiyada ugu badneed gantaalo sawaariikh diyaarado drones iyo gantaalaha gaar ahaan nooca Mareykanka ku tooq jiray ee loo yaqaan cruise missiles علي درابي مدح جود شهيد مهلاتي شيبيلين حرونتا سماينتا مراكيبتا شهيد مهلاتي اللي يرهدو أيا وكل واقعي إن أي برامج كانوا وياهي كي أقول بلادنا وأنا كنت ما إلا بقول مركب ويسوي كوا وين لارج كوا هذا ميديوم كوا يرير سمول فيسلس أي سي سنة الله أصلا دونا waddankiisana wuxuu ku tilmaamay in uu yahay waddanka ugu awoodda badnaa doona marka la gaaro 2030 ciidamada badda ee caalamka oo dhan xataa dalka Shiinaha waa dhaafayna ayay yiraahdeen عجيب وحكون توقع إن ودن كيسو النقطة ودن أود كلها دينا عبد ما دام دجالك أقول بدن اللي سوق الدنيا وبدن يسكوها ليلي تونا مسعود بس شيء أنا يعني عكره وحكون واقع إن ودن كيسو لسه تونا كمانان حرمات أو نوكلير فاسيلتيز حرمها نوكلير كالوكسوبيو هدي عدو إنه ويرهدو هل ميل بنافعية أما بربرينية أمريكا يسوبها هستان أيور كولا السعودة وحنو لنا هاي كمانان وحنا لسه دونا كمانان تاسي أيادات بدن وحكون المعامل إنه يشرتو حرمات نوكلير كدولة إيران مرحا يقولك هوست كوكر سنة سوكاسون عدنا aqoonin Iran ayaa dalka ugu badan ee dhulka hoostiisa saldhigyada goobaha militariga gantaalaha goobaha hubka u yaalo iyo xarumaha badbaadada ee ugu ballaaran leh maadaama lagu tilmaamay in ay yihiin dadka caalamka ku dhaqan ee saameynta dhinaca baakaarta iyo dhulka hoostooda ugu haysta wuxuu sheegay in adeerto hadii xitaa 100 meelood lagu dhufto nuclear 100 meelood oo iyo kun nuclear la soo saari doono dawladda dalka Iran dhinaca kale waxay amar ku bixisay in kor loo qaado awoodda ciidanka cirka jananka ciidamada cirka ee wadankaasi Iran Chief General Hamid Fahadi ayaa waxa uu u sheegay wadamada caalamka oo dhan in gabi ahaanba ay hal shay u diyaar garoobaan kuwaas ay ku jiraan saaxiibada friends and voice بالي هذا عدو صاحب عدو والالبا أما نعب والالبا وحول وين وديار جروبان هل أرنتا صوة الدون كوحو هذا استفاعس وحول شيء ديجان كبشاهر نوكلير باور بلان أي قلنا على كونفرنس وضعك إيطاليا أي صار دون تصدق إلى يلبي يونت أو وين أو دنا عمل كاس وحصو صار كأجاب كلوجو تلاقي كان سلمية دولة ذلك إيران أي إلى يهدرت وحيدين تاي إني سمايساي وحخلاد هذا وحين شيء زين وحكبت شيء جبي أهم بقرشة دي كو أدنى إن هو كنوكلير كولي وياه خطر عادي حوجن إيران وحكو العليسي دور شهر إني سنة عندنا بكم أسمع دوني كان قادة دونين هندلات إندي إسكو جدودين ku aadan isla qadiyatan balse waxay sheegaysaa inay ku celcelinayso hal shay oo ah inay u soo diyaarinayso wadankeedu si aad u xoogan inuu u noqdo wadan istaafaca maalmaha kamid wararka wacala dhinaca dunaasiyada washana qiimaha badan waa tirabeelka wararka si kasta iyo meel kasta daga maqlasaane waxaad ku maqli doontaan qodobo aad u xiiso badan qodobka ugu dambeeya ee ka tagi doonana waxa weeye dawladda nidaamka Israa'iil ee Sanuudiyada waxay qirteen in dagaalkii ka dhacay bariga dhexe gaar ahaan kii ka dhacay magaalada Qasa ay ku fashilmeen wargeyska Yinaat ee soo saara arrimaha aadka sirdoonka ayaa sheegay in jananka hadarto iscasilay ee markaasi howlgabka noqday General Georg Eland uu ku tilmaamay in dagaalkii Qasa ay ku fashilmeen dagaalkii Qasa wuxuu ahaa fashil aad u xoogan wuxuuna ahaa dagaal gabi ahaanba saddex ujeedo aanu kala hayn hal ujeedo oo lala kulmayna ma jirto saddex ujeedo ayaa kala ahaa in gabi ahaanba Hamas la baabiyo ma dhicin sidoo kale wuxuu ahaa dadka reer Falastiin la qaxiyo meesha ka qaxan ma dhicin sidoo kale wuxuu ahaa in dhulka hoostiisa goobaha istiraatiijiga ah ee dadkeena lagu haysto la gaaro lamana gaarin wuxuu ku tilmaamay inuu yahay guuldaradii military ee ugu weyneed ee taariikhda wadan soo gaadhay taasoo hal ujeedo aan lagu guuleysan saddexdii ujeedo ee waaweynaa ee dagaalka laga lahaa cid kastoo dhimatay cid kastoo burburtay macna nooma laha hadaynan ujeedooyinkeena military inaan gaarin ayuu